wuxuu leeyahay arday kitaabka manhaajka ku taxanayd baan ka mid ahaa kitaabka ka hadlaya ixyaa'u lmawaat ama dhulka sida lagu milkiyo aan hore loo lahayn yaa waxaan ka raadiyey buu leeyahay mas'aladiina waan ka waayey su-aasha uu qaba haddaba waa hal su-aala oo ah dhulkaa bannaan ee daaqsinta dadka u ah qabaa'ilkuna kala degan yihiin ama laba daloo dariso xuduud u dhaxaysa ha noqoto isticmaar iyo gumaysi iyo hadajiyo ama gobolladan iyo maamul goboleedyadu xuduudo ay kala samaystaan ha noqoto ama hal dowladii labada gobol xuduudahay u kala samaysay ha noqotee dhulkaa daaqsinta ah ee qabaa'il ay sheeganayaan ama waddan kaluu ku jiraa la leeyahay sidee baa loo milkinayaa dadkaasise ma leeyihiin waxaan rabaa inaan idhahda mas'aladu markii dhulka le yeelashadiisa laga hadlayo kama hadlayo anuu dhinaca iyo garabka iyo jaanibka siyaasiga kama hadlayo oo yaa maamula iyo yaa sheeganaya iyo kama hadlayo laakiin dhulku waa laba qaybood marka koobaad dhul muslin iyo dhul gaal dhulka muslimku leeyahay muslimiinta iska leh dhulka gaaladu leedahayna gaalaa iska leh wax hadda laga hadlaya su-aashu ku saabsan tahay baan haddaba kusoo gaagaabsanoo dhul muslin dhulkaa muslimku ay leeyihiin hal wax bay ku kala yeeshaan markii ashkhaastooda laga hadlo qofku dhulku dariiq sharciga ku milkiyey ama isagu nooleeyey ama uu gatay ama la siiyey ama uu dhaxlay siyaabihii lagu mulkiyi jiray dhulkii uu maro uu leeyahay muslimiintu dhulka ma kala laha qabiil qabiilna uma kala laha qowmiyad qowmiyadna uma kala laha qaran qaranna uma kala laha wixii intaa ka badani waa shuruud ma anzala allahu biha min sulطaanina saa darteed islaamku ma jiro dadka muslimiinta ee dhulka wada degan dhul ree hebel leeyahay ma jiro dhul muslim leeyahay baa jira kadib dhul dan guud iyo dowladii maamusho iyo qof walba bootada uu milkiyey iyo meesha uu noolaystay buu leeyahay markay miisaan sharci iyo muslim laga hadlo marka dhulkaa qofkii nooleeyaa iska leh ama qabiilka deegaanka ha noqdo ama qabiil kale ha noqdo xuduudduu doonaha ku jira mar hadduu dhulkii muslimiinta yahay sifadii la tilmaamay ee lagu milkiyi jiray ee kitaabka ixyaa'ulmawaad ku aragtay qofkii sameeyabaa milkinaya ama qofkii milkiga ka hor astaantii mudnaanta koobaad lagu yeelan jiray ee taxdiirka iyo la dhihi jiray baad mudnaanta koobaan ku yeelan kartaa oo milkiyaddii ka horraysa ilan waxaa jira milkiyad baa jira iyo mudnaan baa kala jira sida meesheeda lagu faahfaahiyey wixii intaa ka baxsan ee siyaasad iyo xuduud loo kala sheeganayo oo masaa'il kale oo dee muslim dhulkale leeyahay miisaankii sharciga aan waafaqsanayn